dhammaan waxaanu leenahay waad mahadsantihiin si nabada bay ku codeeyeen nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulilah si fiican buu inoogu dhacay imikana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo muxuu ahaa diyaariyo tirintii goobaha la dhammaystiro dabadeedna loo soo gudbiyo nidaamkii iyo processkii iyo procedurkii loogu talagalay marka waxaan halkan u soo galay inaan ugu mahadnaqo bulshada Somaliland sida quruxda badan iyo caalamka inaynu tusnay doorasho xor ah oo xalaal ah annaguna insha Allah waajibaadkeena ka gudanayna marka intaas man muxuu ahaa shaqadina way socotaa hadii la ka dhigo wixii damana way la soo wadaagayna guud ahaan dalka oo dhan goob kasta oo furnayd way xirantay tirintii codadkuna waa bilaabmeen muraaqibiintiina waa joogan halwadeenadii commissionku oo aad iyo aad uga mahad celinaya dhalinyaro muxuu ahaa muwaadiniina oo ilaa xalay ilaa habeen hore soo safrayay oo u yimid oo goobihii ka shaqeeyay oo u dhabar adeegay run ahaantii hawsha culus ee qaranka u hayeen ayaa ilaa maanta hawsha wada waan u mahad celinayaa muxuu ahaa waxaanu leenahay inta hadhayna si fiican oo qurux badan oo sharciga waafaqsan inoogu dhamaystira dadka nooga shaqeynayay waxay ahaayeen tiro 12,000 gaaraya marka la isku daro shaqaalaha loo yaqaan koorka ah iyo shaqaalaha loo yaqaan non koorka ah waxa kaloo iyaguna aan halkan aad iyo aad uga mahad celinaya marnaba la ilaaweyn ilaa imikana u taagan ciidamada qalabka sidee kala duwan khaasatan muxuu ciidamada booliiska iyo ciidamada muxuu qaranka oo ilaa iyo muddo dheer har iyo habeenba taagnaa caawana heegan buuxa ku jira si loo sugo amniga muxuu ahaa codadka la tirinayo si nabadgelyo loogu soo xareeyo si dabadeedna tallaabada tan ku xigta loo bilaabo biidmillah aad iyo aad baad mahadsantiin baan leenahay waajibaadkiina qaranka ayaad gudateen dhammaan goobaha muxuu ahaa magaalooyinka kala duwan waxa jooga komishineeradii oo isoo kormeeray habsami u socodka goob kasta ka warhayay aniga kula muxuu ahaa hadlaya goobihii caawa magaalada Hargeysa ee cabashooyin ka jireen dhammaan waan tagay wax haba yaraatee goob ah oo carqalad ka jirto ama cabasho ka jirto oo aanu aragnayna ma jirto waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo ururada doorasho qurux badan baa inoo dhacday hal laga daayo wararka been abuurka hal laga daayo wararka propagandada ee la abuurayo hal laga daayo وخاصة waxaan leeyahay social media hal laga daayo oo darasyadan sharci darrada ah ee lagu soo qorayo waliba mas'uuliyiinta xisbiyada iyo ururadu waxa weeye mas'uuliyad ba maanta leedika raba caawa leedika raba bari leedika raba ilaa inta commissionku shaqadiisa gudanayo dhammaan waxaan idin ka codsanaynaa inaad joojisaan oo daraskan ama natiijooyinkan aad soo qoraysaan ee Facebook ku faafinaysaan xeerka iyagu tallaabo kasta oo noo ogol yahay iyo awood kasta oo noo ogol yahay waan adeegsanayna ma aqbalayno in muxuu ahaa doorashada quruxda badan ee inoo dhacday ee imikana ay inoo hadhay fayskii labaad ma aqbalayno in la carqaladeeyo sharcigaanu la tigsanayna cid wal oo isku dayda in ay samayso warar been abuura warar propaganda ah iyo natiijooyin ama daras aan jirin meel allaaliyo meel laga keenay wararka rasmiga ah komishanka doorashooyinka qaranka ayaa bulshaweynta iyo dadweynaha iyo xisbiyada iyo ururada la wadaagaya wax allaaliyo wixii war ah iyo muxuu ahaa tallaabo kasta oo ka socota hawshan aanu gacanta ku hayno processka marayna waxa weeye doorashadeena way daahfuranta goobtu marka la xiro ee loo adeego muwaadinka ugu dambeeya dhammaan muraaqibiintii oo fadhiya muxuu ahaa ayaa hawlwadeenada goobtu ay tirinayaan dabadeedna waxay saxiixayaan foomka natiijada iyo agabka iyo stationeryga dhammaan waxaa loo soo gudbinayaa heer degmadaas oo ay joogaan muraaqibiin iyo mas'uuliyiin ka socda asxaabta qaranka iyo hawlwadeeno muxuu ahaa xogtaas goobahaas degmadaas isu geynaya halka marka la marayo waxa kaloo barbar soconaysa mar walba in si daahfuran in si sharciga waafaqsan looga jawaabay wixii cabasha wixii aan cabasho lahayn way soo gudbayaan waxay soo gudbayaan heer goobeed ay ka soo gudbayaan heer muxuu ahaa degmo heer gobol dabadeedna heer qaran marka nidaam cad oo waadax ah baanu maraynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in
daneeyaasha siyaasaduna way ogyihiin sharciga way ogyihiin xeerka way ogyihiin ay u hoggaansamaan guddida asxaabta iyo guddida howlwadeennada ama guddida task force-ka asxaabta iyo muxuu ahaa ururada wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa waanay ogsoon yihiin xogtooda iyaga ayaa u madax bannaan laakiin xogtaasi ma aha mid rasmiya ma aha mid lagu kalsoonaan karo ma aha mid sharciya ta sharcigaah waxa weeye ta commissionka ah ee ku meelgaadhka ah taas markay dhaafto waxaa loo gudbayaa ta kama dambaysta ah ee maxkamadda sare labadaas tallaabo unbaa sharciya intaa wax muxuu ahaa ka hooseeya waa sharci darro iyo kicin dadweyne iyo khalkhal la gelinayo doorasho qurux badan oo inoo dhacday fadlan waxaan idinka codsanaynaa arrimaha ka fogaada aad baad mahadsantiin